السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب channel كينا قفت إذن لهذا سواء اسماء هل كان نقل سعوتان أما نقريسين إنسان نوا channel كينا داود هدي تامرك أهرسي أتصوب وقتا channel كينا please subscribe كنو صار like توفري وحيدي الرجلين وحقاقا إن أصحابي عاو حربا إنان ماركتا إذن سو كتبيو لبدا قصة بقاد أمرو قبضان قصة كواد أيا وحيد ka dhacday magaalada Xalab ee Suuriya qaryo u dhow yani tuulo u dhow ayaa waxa ka dhacday qisadan waxay ku dhacday gabar la yiraahdo Amal waxay ahayd gabar yar oo markaas gabdhaha soo qaan-gaaray ah oo hooyadeedna ay dhimatay oo la nool aabaheed iyo walaasheed dad iska reer beeraley ahna way ahaayeen waxaa dhacday in maaragta qaryo kale ama tuulo kale u dhow in yani nin jooga uu ka soo doonay Amal aabaheed yani ninkaas Amal soo dooni doona aabihiis iyo hooyadiis ayaa waxay u yimaadeen Amal aabaheed waxay ku dhaheen gabadhaada ayaan rabnaa sidee u aragtaa wiilkeena ayaan u rabnaa oo maasha Allah nin wax bartay oo askari ah oo kala arag ah adugu sidii ayay maaragtaa Amal baa la weydiiyey waxay dhahday wax aniga mushkilad ah ma qabi okay waaye aabaheeda weydiiyey sidii ayaa waxaa dhacday in Amal reerkii ay reerkii soo doonay loogu wareejiyo oo loo arooso oo la geeyo gurigii yani sodohdeed iyo sodogeed oo wiilku halkaa wiil kaliya qabeen familkaas halkaa wiil kaliya qabeen wiilkaas Amal yani gursaday sidii ay Amal waxay ula degtay maadaama ninkeedu inta badan uu maqan yahay oo marmar yimaado si ay uga warhayaan hooyadiis iyo aabihiis adugu maasha Allah reerku waa la isfahansanaa ninkan uu bixi jiray safar ayuu gali jiray wuuna soo noqon jiray intuu safarka ku maqan yahay Amal sodogeed iyo sodohdeed waxay sameyn jireen way kaxeyn jireen waxay u keeni jireen aabaheed si u soo salaanto iyo walaasheeda ka yar xiliyada maaragta fasaxida waa u imaan jireen maasha Allah adiga reer aad isku fahansan oo dhaqanku maasha Allah yahay ayay ahayd ninkaana wuxuu iska ahaa askari buu iska ahaa wuuna imaan jiray adugu waxaa dhacday maalmaha ka mid ah ninkan hooyadiis oo yani Amal sodohdeed ayaa waxaa dhacday in ay soo kacday xilli salaad subax ah yani xilliga salaad subax wax yar ka hor dadka waaweyn iska soo kacaan way iska weysaysatay meel banaankay fadhiisatay way iska weysaysatay iska cibaadaysanaysay iska tasbiixsanaysay meeshaas ayay laba ragaco oo salaada subax fajriga ka hor iskaga tukatay ayadoo meeshii fadhida ayay Ilaahay amarkiis waxay aragtay wiilkeedana wuu maqnaa waxay aragtay qolka gabadhay sodohda u tahay nin ka soo baxaya ninkaas oo maaragtaa si tartiib ah u gabanaya oo maaragtaa qolka ka soo baxay ayay aragtay maamadii aad ayay iskugu naxday waxay istiri gabadhan yani ninkan gabadhan ayuu u yimid xilligan leydka ahna wuu ka baxaya gabadhanna waa gabar akhlaaq xun oo dhaqan fiican aan wadan adugu way tuhuntay maamadii gabadhii waxaa dhacday odaygeeda ayay u yeertay waxay ku tiri wiilkeena xaaskiisa saas ayay samaysay maxaan ka sameynaa ma dilnaa ma dagaalanaa maxaan sameynaa adugu odaygii ayaa wuxuu yiraahday maya bal wiilkeygu ha yimaado insha Allah adugu wiilkii ayaa isbuuc kadib kusoo noqday gurigiisa reerkiisa u yimid saasta u yimid waxaa lagu yiri dhageyso meeshaan qofku ma joogto qoftaana saasaa dhacday waxaana aragnay iyadoo maaragtaa uu qolkeeda uu ka soo baxay nin xilligaas nin waxayna leedahay intiis adigu gursanin cashiiq ah bay lahayd yani ninay hore isku jeclaayeen midda ayaa jiray ninkaasna dee soo guriga soo baxaya ayaa aragnay adugu
ninkii wuu xanaaqay wuu qayliyey meeshii ayuu ayadiita u taga weydiiyey waxay ku tiri yaa ma jirtay tiri waxaas hana igu degdegin aduu dee muuse dhegeysan meeshana qadar ayaa ka socota muuse dhegeysan waxaa dhacday in maaragta uu tuub dhegta saa usoo qabtay gabadhii uu u keenay asaga iyo hooyadiis iyo aabiis ay u keeneen reerkooda oo uu ku yiri aabaheed qabso gabadhaada dhaqan xumadaas ayay samaysay anoo jooga ixtiraam darrada iyo dhaqan xumada anoo yacni guriga hooyada iyo aabahay ayagoo ay tagtaagan yihiin ayay nin ay yacni hore isku wadan jireen gurigayga keentay dhaqan xumadaas ayay gabadhaadu samaysay la wareeg baa layidhi gabadhaada adayna sharafteeda ku dhibaysaa adigana yacni igala wareeg yacni aniga wixii meher aan bixiyey iyo wixii xoolo iyo aan bixiyeyna bartaas ha laysoo dhigo adugu odayga wuxuu sameeyey maskiinka xoolihii ayuu u diyaariyey iyo wixii maaragtaa gabadhaan laga soo bixiyey ayadiina gabadhiisiina tuu qaaday oo kaxeeyey ayuu qol kusoo xiray reerkaana wuu iska maamusay wuu iska daray xoolahoodii iyo waxooda waa la siiyey adugu almuhim waxaa dhacday in maaragtaa gabadhiisii uu weydiiyey aaba waxay tiri aniga arrintaas ma samayn waana maaragta waana idulminaysiin wax macquulana aniga aan waxaas aan nahna ma jirto yacni mana samayn arrintaas ayay tiri adugu waxaa dhacday sheekada si u socoto waa xoogaa waa si murugo leh waxaa dhacday in yacni gabadhii maalinkii dambe in waa iska garanaysaan dad reer tuulaadka iyo maaragta odayaal dhaqameedka iyo waa iska fahmaysaan waxay leeyihiin dhaqamo odaygii ayaa loo yimid maalinkii dambe waxaa loo yiri dhegeyso gabadhaada dhaqan xumadaas ayay samaysay mana rabno gabadhaada sharafteeda yacni gabadhaada gabar sharaf lama ahan guriga ninkeeda iyadoo joogta oo yacni sodohdeeda iyo sodonkeed la joogta la nool ayay arrintaas ku kacday gabadhaada sharafteedana yacni ceebtaas waa inaad iska dhaqdaa oo shaatigaaga aad maaragtaa shaatigaaga yacni nadiif ka dhigataa wuxuu yiri gabadhayda kolley arrintaas ma ogi inay samaysay mana degdegi karo aduu waxaa lagu yiri dhegeyso anaga waxaa lagu yiri sharaf ayaan leenahay caado iyo dhaqan ayaan leenahay gabadhaadu hadday waxaa samaysay waa inaad dishaa oo sharaftaada yacni shaatigaaga aad wasakhaysan aad nadiif ka dhigataa oo iska dhaqdaa ceebtaas aduu waxaa dhacday waxay dhaheen gabdhahayagaa nooga dayanaya hadhowna dee arrintan haddaada wax ka qaban gabdhaha dhan baa dhaqankaas naga qaadanaya oo nooga dayanaya ama meesheena tuuladeena iyo eriyadana nooga guur adugu odaga waxaa loo qaatay inuu saas sameeyo ka guuro sababtoo ah meel kale ayuu tegi karaa nolol kale ayuu la bilaaban karay gabadhiisa laakiin qadar baa meesha ka socotay waxaa dhacday in maaragtaa ninkii uu odaygii uu aad iskugu buuqay oo laga badbadiyey arrintii oo maaragtaa yacni odayaashii waaweynaayo xaafadda dhan u yimaadeen tuulada u yimaadeen oo meelu istaago waayey markii dambe odaygii shaydaan ayaa qaalib ka noqday gabadhiisi yartaa wuu qabtay meel dadka dhan aysa ugu jeedaan oo maaragtaa oo la daawanayo ayuu maaragta gabadhiisii ku gowracay oo ku dilay waxaa dhacday in maaragtaa meeshaas uu gabadhiisa yacni ayagu waxay leeyihiin sharaftiisa ayuu soo ceshtay ayay leeyihiin laakiin meeshaas qof muslim ah ayaa lagu dilay oo yacni dhiig ayaa la daadiyey dhiig bini aadam ayaa meesha ku daatay saasay tahayna ayagu waa ku faraxsanaayeen odayaasha iyo dadka tuulada aduu waxaa dhacday gabadh yarta oo ku haysa ayuu dilay odagii oo ku haysa aabo anuma sameynin aabo aniga ma yeelin aabo waa ku baryaya i aamin aabo ayada ku hayso saa gabadh yarta u ooyeysa ayuu odagii meeshii ku dilay subxaan allah waxaa dhacday in maaragtaa imaamka masaajidka xataa intuusa gabadhaas dilin odagu u yimid wuxuu ku yiri gabadhaada ha ku degdegin
hadhow waa ka shalayn doontaa dhaqan odayaal dhaqameed hadalkooda iyo aakhiradaada ayaa ku daran adugu waa lala hadlay laakiin nasiib daro odagu ma dhageysan arrintaas waxaa dhacday maaragtaa in meeshii gabadheertaa lagu dilo oo dhiiggii lagu daadiyo gabadheertaa dhiiggeedii meeshii lagu daadiyey oo lagu dilay adugu muddo yar kadib waxaa dhacday odaygii inuu maqlay imaamkii masaajidka oo tuuladaas ayaa aad u murugooday oo habeenkii ka seexan waayey nugteertaa dulmiga la dulmiyey aad wuu ka jiifan waayey wuu ku riyoodaa markaasaa dadkii magaalada u sheegaya sheekh hebel markuu seexdaba gabadhii ayuu ku riyoodaa odagaa loo sheegayaa saasaa jirta yacni damiirka isa ayaa marka odaga dib usoo kacay oo wuxuu dareemay murugo inuu gabadhiisiina dilay asagoo odayaal iyo ku raaligelinaya iyo cashiiro gabadhiisa inuu dulmay ayuu dareemay waxaa dhacday marka hal gabar ayaa museyga ninkan odagan u hartay gabadhii u hartay beeraley ayay ahaayeen asagoo odaga iska murugaysan ayuu gabadhiisii soo watay oo beerta isagoo jooga makiinad weyn oo beerta taalla oo maaragta maaqaan waxay kulle ku samaystaan dabcan makiinada weyn oo saa u wareeganaysa ayay ahayd oo meesha beerta taalla ayaa waxaa dhacday in gabadha yartaa oo saa u taagan 16 jir ayay ahayd timo dhaadheer bicnugteertaa lahayd waa gabadhii labaad u hartay odagaas musiibada ku dhici doonta ayaa timihee dabayl yaraa lahaada dhulta xooga ay xanuunaysa dabayl yacni xoogan oo saa u socota ayaa gabadh yarta ahayd timaheedii saa u qabatay bay makiinadii ku riday makiinadii saasitay u wareejisay odayga hortiisa ayay gabadhiisii oo meyd ah soo dhacday odaygii naxdintii uu naxay asagoo saa u taagan oo yacni odaygii aad maaragta xaalad xun ku jira oo saa u dhacay baa waxaa ilaahay amarkiis baa dadkii u yimaadeen gabadh yarta ahaydna lama badbaadin karin meyd ayay ahayd meeshaas odagaas labadiisi gabdhood buu ku waayay midna asaga gacantiisa ku dilay midna qadartan ayaa ku dhacday waxaa dhacday muddo yar kadib in maaragtaa odagan warkii waa garanaysaan meel kasta ayaa waxaa lagu soo qoray jariidooyinka ninkaas gabadhiisa dilay oo sidaas ah yacni sharaf darteed u dilay iyo gabadhiisii kale saas uga dhimatay dhacdooyinkii ayaa lasoo qoray oo meel kasta lagu soo qoray dadkiina waa ogtiin warka waa la sheegayaa marka tuuladii wuxuu gaaray warka ninkii ma garanaysaa gabadha amal guursaday qaryadii ay deganaayeen tuuladii ay deganaayeen ayuu warka gaaray ilaahay amarkiis meeshaas waxaa maqlay warkaas oo maqlay ninkii amal habeenkii qolkeeda imaamadu arkaysay sodohdeed arkaysay inuu ka baxay ayaa warka maqlay ninkii orday ayaa u yimid odaygii wuxuu yimid tuuladii gabdhaha yararka ay ku dhinteen ayuu yimid wuxuu yimid odaygii buu u yimid wuxuu yiraahday adeer i dhageyso adeer waxaan rabaa inaa isaamaxdid oo iska kee cafisid waxaan ahay buu yiri ninkii qolka habeenkii ka baxay oo maaragta maamada cajuusada fajriga tukanaysa ee aragtay ayaan ahay markaasuu yiri haa waxaa tahay miyaa cashiiqada yacni ninka isjeclaayeen gabadhayda miyaa tahay subxaan allah buu yiri ma ihi gabadhaaduna gabadha ugu sharafta badan gabar bay ahayd ma ii aqoon ana ma aqoon weligeyna ma arag waxaa dhacday buu yiri inaa ahaa yacni xaraami ama tuug inaa ahaa baa dhacday yacni anu waxaan ahaa buu yiri tuug waxaa marka isku soo aadamay buu yiri waxaan ogaa buu yiri habartan iyo odagan kaliya inay guriga ku wada nool yihiin oo wiilkoodana uu jiro yacni uu shaqo ku maqan yahay oo uu la noolayn uu yimaado ayaan ogaa mana ogeyn buu yiraahday in reerkan gabadhan ay soo gursadeen oo ay kusoo biirtay anoo isdhahaya waxad oo guriga soo galay ayaan waxaa maqlay buu yiri sharqanta maamada markaan arkay buu yiri in la soo jeedo sharqanta maamadana waa iska noqday waa iska baxay gabadhaana imay arag
imana taqaano ana weligay gabadhaada ma arag gabadhaadana sababteeda yani sabab aniga aan sameeyay darteed ayay gabadhaada maanta mustaqbalkeeda ku baaba'ay oo aad maaragta adigana aad ku noqoto gacan ku dhiigle marka waxaan rabaa buu yiri camo inaa isaamaxdid yani inaa isaamaxdid ayaan rabaa buu yiri meeshii ayuu oday arrintii markii saa loogu sheegay istaaga ayuu odaygii ka dhacay maba lala soo roginba sidii ayuu museyga ku dhintay odayga ku dhintay naxdintii iyo murugadii ayuu ku dhintay booliskii ayaa yimid ninkaana wuu u sheegay booliskii wuxuu dhahay aniga yani qof ma dilin laakiin sabab ayaan u lahaa marka maxaa inuu isku dayay inuu waxaado darteed ayaa ninkii loo xiray xabsiga loo geliyey nasiib daro ninkiina xabsigii naxdintii iyo murugadii iyo asagiina ayuu xabsiga asagana ku dhex dhintay qisada amaalna sidaas ayay ku dhamaatay yani qisadan waxaa ka fahmaysaan ama ka dhex qaadanaysaa dulmiga qofka bini'aadanka horta soomaalida hore wuxuu dhahdaa hubsiima hal baa la siistaa teeda kale dhaqanka iyo odayaal dhaqameedka iyo yani wadamadaas carabta aad ayuu ugu badan yahay meesha arrintan ay ka dhacday waa suuriya waa xalab tuulooyin agteeda ah magaalada weyn xalab yani tuulooyinka hoos yimaada ayay arrintaa ka dhacday waana yani dulmiga iyo gabadha miskiinta loo geystayna waa yani dulmi aad u weyn weeye dulmigii ilaahay muxuu qadaray intaasu qof inay galaafato yani sideedaba dulmigu mada yani waa ilaahay baaba dhahaya dulmigu waa shay xun anaana nafteyda ka xarimiyey idinkana waa yani waa idinka xaaraamintinimeeyey adiga asxaabey dulmiga qisada loo yani gabadhan waxay ku socotaa dulmi yani waa dulmi la dulmiyey cunugta yartaa iyo yani odaygii oo dhageystay odayaal dhaqameedka hadalkoodii marka sidaas ayayna maaragta qisadaas waxay u galaafatay intaasoo qof oo bini aadam ah ayaa maaragta ii sheeg oo arrintaa darteed u dhintay asxaabey qisada amaal sidaas ayay ku dhamaatay arrinta amaalna sidaas ayay u fashilmatay intaan qisadan qisa lamida iskaga imaan doono asxaabta waxaan idin leeyahay fi amaanillaah qiso kale ayaan rabay inaan idinkugu daro oo iyadana sidaanoo kale ah oo wiil ciraaq ka dhacday oo wiil ku dhacday laakiin insha allah next time ayaan ka dhigayaa sababtoo ah videoga ayaa dheeraaday almost 16 daqiiqo ku socda 17 daqiiqo marka insha allah qisada kalena waa idinkugu xijinaya oo wiilka reer ciraaq ah intaan qisadan qisa lamida iskaga imaan doono waxaan idin leeyahay fi amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu